Soomaaliyeed waxaa ka codsanaya inay daaweeyaan inay daawo arkayaan saas waay waxaan ka codsanaa inay soo gargaaraan waxay soo arooriyaan oo lagu daaweeyo waa mahadsantahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa in ummadda soomaaliyeed ayagana maaragtay ay ka soo jawaabi doonaan fideogaaga insha allah haye bashiir insha allahu caafimaada ku rajahaya caafimaad taama insha allahu tacaala ilaahi ha ku caafiyo waana caafimaada insha allah ya waxaan rajaya haddii ummadda soomaaliyeed muuqaalkaaga arkaan in insha allahu ay ka soo jawaabi doonaan saa ku baranabo insha allah caafimaad waa fadheen hadda waa fidhi waa jijiifa waa gartay marka waa maanta yar geedkaas hoostiisa waa gartay waa tanaadigu waa aragtay waa arkay waa runtahay walaalayaal arrintan aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay xaqiiqatan laba wiil oo yar oo 6 sano jir iyo 5 sano jir kala ahay hadda waa 17 iyo 16 10 sano ku dhawaad cudurkan ayay la nool yihiin waxay la dhasheen maahin waa cudur la soo darsay walaalayaal dadku waa iskaalmeeyaan ilmahan maaragtay aan garab istaagno xaqiiqatan dhabarka iyo lugaha intaba waa isku jiraan yarkan hadda shariif aan u garab istaagno walaalayaal hadda dhanka xibnahaaga ma lugaha miyaa dhanka lagaaga badan yahay gacmaha iyo lugaha hadda dhabarkan waa godaha dhabarkana ka baran dhabarka dhan ma ka socotaa jiradan dhabarkay ka socotaa miyaa waa gartay hadda lugaha kulli ma ku fidsamayaan mise isku laabay lugaha gacmaha waa isku laaban yihiin ilaahi ka qaad insha allah caafimaad ummadda Soomaaliyeed maxaa ka codsaysaa shariif waxaan ka codsanaa inay soo gargaaraan waxay soo arooriyaan oo lagu daaweeyo waa mahadsantahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa in ummadda Soomaaliyeed ayagana maaragtay ay ka soo jawaabi doonaan fideogaaga insha allah hadda saad aragtaan wiilkaani lugta waa u fiicneed mar dhow lugta saas wadan u soo laabmaysaa soo ma jidaan lugaha waa ay soo laabamayaan maalidan culayska ku soo kordhaa isbedelka xaqiiqatan xanuun iyo dhibaato la noolin ilaahay ka dulqaadi kara laakiin aan garab istaagna walaalayaal ما شاء الله سعدي أحمد حسن بل يقولون بل المهان أنا يقول الرجل هذا أنا قبضت أنا بدي أدور جوج واقرته هيه أنت يا 18 سنة جايسة واقرته داونا وأوعي دوا أويسي وأوعي واقرته ويقول عشان لا يجي فين مركب وافد هذا في دوا واجي يجي فا واقرته مركب ما يجي لينجيت كسوستيسه واقرته waa tanaadigu waa aragtay waa arkay waa runtahay waa gartay marka meeshaas ay yaaliin waa gartay marka waa lagu rafaadsan yahay ajaa'ib waa nuur ilaahay keena waa kulli nimca waay laakiin hadda bal xaaladahooga bal yaa gacanta ku haayo gacanta waa aniga adaa ku haayo 15 sano ku dhawaad asan gacanta marba maray ahayd marka ugu liidata hadday ugu liitaan إبل ماركتي كبلا صعد ما لها ينبلنو صعدوا على هاي هيه هل هذا دوكسي يعني يجي أو 5 سنة عملوا سنة هلنا 8 سنة عملوا سنة وسعوة هل قالنا دوكسي مركي اللي جاي نربيا كذا جاي صعدوا هو سكان واقرت مش أنا جوا إن شاء الله تعالى هو يبل أمد الصومالية أردتها أو بندقينا هي بل نمبر ملاد هي ينوشك نمبر كاي ولا إبر بلاش لواتشان لواتيلي حيه حواي 86 86 أفرتني سدح أي أمد الصومالية maxaa ka codsahay inay soo caawiyaan ilmahan ila kalkaalaan ay kula kalkaalaan min caafimaad loo helaayo min caafimaad loo helaayo min loo weeyahay inay soo caawiyaan insha Allah taala waa maasanta hooy waxaan rajaynayaa insha Allah in ilaahay annaga dhama xanuunkana wada hayaa in ilaahay caafimaad taama siiyo dad muslima u kacana la helo insha Allah waa mahadsantahay aadan ku salaam insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal dadkan iga dambeeya ee walaalaheena ah waa niman dhalinyaro ah ee mustaqbal leh ee haddan maaragtay soo koray xaqiiqatan dhibaatada maaragtay heesata waa dhibaato qof walba maanta dhalinyaro ah oo ka damqalahay hooyadii dhashay bal maxay dareemi kartaa ilmaheedii ay ku soo tiri tacbeeshay halkii ay maanta meesha ay rabtay inay ku nasato maanta wali ayada ay gacanta ku hayso ayagana wali ay dhibanayaal yihiin muu malaysaa in ilaahay uu awoodi waayo inuu maaragtay dadka annaga saanahay dadka facooda inuu ilaahay inuu awoodi waayo muu malaysaa noomay Allah subhanahu wa ta'ala waa awoodiyaa saa adiga tahay xoogad leedahay inuu siiyo ee shaqeystaan wax walba ilaahay maaragtay gacanta u gali waa awoodaa laakiin maxaa la fiirinayaa ma taqaan adiga lagu fiirinaya aniga la fiirinaya ummad ilaahay la fiirinaya qof walba muslima
ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maaragtay ummaddiisa asaga ayaa maaragtay abuuray waxna uma weynin balse ummadda ilaahay inay isku kaalmeeyaan dhibka maaragtay iskaga kaalmeeyaan ayaa loogu talagalay saas liajligeeda ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsahaynaa in maaragtay nimankan walaalaheena oo dhalinyarada ah waalidka oo dhib iyo culeys maaragtay lahaw uu ku haayo inaan la qaybsano ilaahay horta mar walba caafimaadka haya balse waxay u baahan tahay in maaragtay annagana maaragtay aan garab istaagno Allah subhanahu wa ta'ala annaga ayuu nagu fiirinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uma weynin caafimaad uma weynin xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed san kaga baranay waxaan ka codsahaynaa in maaragtay dadkan walaalaheen ay u soo gargaaraan dhibaatada iyo culeyska intaas la eg heesata muddo aad iyo aad waliba u fog in maaragtay garab ay ka siiyaan cuduradaani inta badan waxaa loo aaneeyaa dadka Soomaalidu waxay iska dhahan dabeel iyo waxyaabo la mid ah balse wixii Allah subhanahu wa ta'ala garanaa laakiin adduunka maanta casriga ee lagu nool yahay wax walbo daawadiisa waa la yaqaan kaliya waxay u baahan tahay rag u istaaga ee meesha loogu talagalay goobihii loogu talagalay caafimaadka maaragtay rag la tagay u baahan tahay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsahaynaa min fadlikum wa ihsaanikum waxaan idinkaga codsahaynaa in maaragtay dadkan walaalaheena ee iga dambeeya in gargaar bini'aadanimo oo walaaltanimo oo islaamnimo oo muslimnimo ah maaragtay in loo fidiyo qof la arka wax alaala wuxuu awoodo yani uu ku kaalmeeyo haddii aad wax kale awoodayso waxaad awoodaa in aad muuqaalka aad u sheer gareyso oo aad meel dheer u gaarsiiso si qof muxsin oo wax baxsaha u arko waa wax ugu yar aad awoodid haddii aad intaas ka badan awoodid waa inaad dhaqaale aad ku bixisaa $1 waa lacag $2 waa lacag $100 waa lacag sadaqadu mar walba waxay calaa xasbi maaragtay niyadaada heerka ay joogtay ku xiran tahay badnaansho lacagta aad bixinayso badnaanshadeeda kuma xirno niyada saafiga aad ku bixinayso ayay barkadeeda ku xiran tahay inay ilaahay ku labalaawo marka waa maasantihiin dhibkaani aan la qaybsanno dadkan maaragtay ahalkeena ah oo ummadda Soomaaliyeed waa wada ahal waana wada qaraabo aan maaragtay isgarab istaagno haddii anaga aan isgarab istaagno wa tacaawanu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanu cala alithmi yali haddii maaragtay aan isugu kaalmeeno biriga iyo samafalka iyo wanaagga Allah subhanahu wa ta'ala ayaa maaragtay noo kaalmeeyaa in aad jeebkaaga wax ka bixiso waxay u baahan tahay waa iimaan iyo alla ka cabsi qof aan iimaan lahayn wax ma bixiyo ugu midaas marka ummadda Soomaaliyeed waa mahadsan tahay 100% noo sheeg nambarkaaga eber balaash 25 kow 6 haye 86 82 43 oo ummadda Soomaaliyeed maxaa ka codsahay inay soo caawiyaan ilmahan ay la kalkaalaan ee kula kalkaalaan